maanta daahfurno tababarada aan siin doonno ama siinayno ururada dhalinyarada. waxaan ognahay waxay tahay tababarkan wuxuu ku aadan yahay inta badan arrimaha la xiriiro hoggaanka iyo weliba maamul wanaagga. waqti xaadirkan tababarkan wuxuu ku soo aaday xilli muhiim ah, xilli xasaasi ah, xilli maxaan ku dhahaa dalka Soomaaliya khaasatan si guud ay u jirto duruufo hoggaamineed isla markaana sabab u ah maxaan ku dhahaa waaqiciga maanta la joogo ama isfaham la'aanta la xiriirta arrimaha doorashooyinka iyo wax la mid ah. waxaan ognahay waxay tahay dhalinyarada populationka ugu badan deegaanada Hirshabeelle inay yihiin dhalinyaro. sidaas darteed wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo kaashanayso hay'adda YBR waxa ay soo qabanqaabiyeen tababaro la xiriiro hoggaanka wanaagsan iyo sidoo kale maamul wanaagga. waxaan ognahay waxay tahay dhalinyarada markaan ka hadalno ama youthka markaan ka hadalno si guud dalka Soomaaliya waa percentage ugu badan. haddana markaan ka hadalno space-ka siyaasadda kama soo muuqdaan. marka sidii kaliya political participation-kooda loo xaqiijin karo waxay tahay in la hormariyo, in la siiyo tababaro, in la hormariyo fikradooda ku aadan hoggaanka iyo weliba maamul wanaagga. anoo fursaddan ka faa'iidaysanayo waxaan rabaa inaan u mahadnaqo hay'adda YBR oo xaqiiqatan naga saaciidaysay maalmahan la soo dhaafay in dhallinyaradeenna khaasatan dhallinyarada ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle iyo weliba ururada dhallinyarada in la siiyo tababar kaasoo wax badan ka tari doono fahamkooda ku aadan hoggaanka, fahamkooda ku aadan maamul wanaagga iyo fahamkooda ku aadan dowlad wanaagga. sidaas darteed waxaan ugu baaqaa waxay tahay in dhammaan dhallinyarada deegaanada Hirshabeelle khaasatan ururada dhallinyarada jaanisku u helay inay ka faa'iidaystaan tababarkan. waxaan ognahay waxay tahay in markaan ka hadalno siyaasadda guud dalka culeysyada yimid ee hoggaan xumida darteed maanta ay jiraan